qataada raximahullahu tacaala waxa laga wariyo ama ruwaadda wax ka warisa kuwooda ugu sugnaanta badan fi lxadiid oo loogu kalsoonida badan yahay ayuu ka mid yahay hamaam ibnu yaxya. haddana halkan qataaduu ka warinayaa can qataada. qataada huwa qataada ibnu dicaama assaduusi abulkhadaab. qataada ibnu dicaamata assaduusi abulkhadaab, kunyadiisa waxaa la yihahdaa abulkhadaab. qaala dahabiyu raximah اllah xaafidu اlcasri qudwaة اlmufasiriin wاlmuxadisiin. xaafidu اlcasri qudwaة اlmufasiriina wاlmuxadisiin. wuxuu leeyahay qataada waa xaafidka casrigaas iyo zamanka xaafidkoodii buu ahaa. qudwaة اlmufasiriina wاlmuxadisiin, wuxuuna ahaa qudwo iyo ninay ku daydaan muxadisiin iyo mufasiriin labadaba. mufasiriin iyo muxadisiin labadaba qudwo iyo hoggaan buu u ahaa. ninay eegtaan oy ku daydaan buu ahaa raximah اllah. qataada waa min axfad الnaas, dadka kuwa uga xifdiga badan ayuu ka mid ahaa. maca dalika wulida akmah, waxuu dhashay asigoo indhoolo ah. qataada indhoolanimuu ku dhashay, ma ahan indhoolanimo gadaal uga timid, asoo indhoola ayuu dhashay. cilmigana wuxuu ximbaaray uu bartay asigoo indhoola ah. waxaana laga wariyey inuu yidhaahday maa samictu shay-an ilaa xafidtuh, shay ma maqlin ilaa waan xifdiyaa. wixii dhegahayga ku soo dhacaba qalbigayga waa xifdiyaa. ilaahay subxaana wa tacaala indhihii wuxuu ugu bedelay xifdi qawiya oo xoog badan ayuu ilaahay ugu bedelay subxaana wa tacaala. waxaana la sheegay inuu ahaa nin aad iyo aad ugu dadaala fii طalab اlcilm, soo indhoolo ah. xadiidka waxaa la yidhi markuu maqlo waa ku celceli jiray, asagoo kor ugu qaylinaya, uu ku celceli jiray. markuu xadiidka maqlo aad buu ugu celceli jiray si uu u sugo oo xadiidka uusan uga lumin. dadaalkiisa marka bacda tawfiiq illaahi caza wajal, dadaalkii faraha badnaayo uu bixiyey wuxuu ku gaaray oo ilaahay ku gaarsiiyey subxaana wa tacaala heerkaas in la yidhaahdo xaafidu alcasri qudwat اlmufasiriina wاlmuxadisiin. labadaba hoggaan uu yahay in la yidhaahdo, isagoo haddana nin indhoolo ahaa. qataada raximah اllah ammaan badan oo culammadu ammaaneen kadib xagga cilmiga waxaa lagu dhaleeceeyey mas'alo xagga caqiidada ah oo tarjamadiisa lagu sheegay. waxaa la yidhi kaana yara alqadar, wuxuu arki jiray ra'yiga qadariyada. alqadariya waxay ka mid yihiin min alfiraq اdaalla. ra'yiga qadariyada ayaa ku jiray, macnaha qadari rasmiya ma ahayn, laakiin bidacdii qadariyadu aaminsanaayeen wax ka mida ayuu ku ta'auray oo uu ku saamoobay. adahabi raximah اllah markuu sheegay inuu qadarka arki jiray ama masalada qadarka uu ku dhacay, wuxuu yidhi wamaca hada famaa tawaqafa axadu fii sidqihi wa cadaalatihi wa xifdihi. wamaca haada, iyadoo lala qabo yidhi arrintaa oo arrinkaas uu ku dhacay oo bidcada ah, famaa tawaqafa axadun, qofna kamuusan tawaqufin buu yidhi oo kama istaagin fii sidqihi runta qataada, wa cadaalatihi iyo cadaaladiisa, wa xifdihi iyo xifdigiisa. ma jiro caalim culummada ka mid a oo yidhi waan ka joogsanayaa oo kuma kalsooni oo runtiisa wax iiga jiraan, ama cadaaladiisa ayaa maaragta shaki iiga jira, ama xifdigiisa wax iiga jiraan. axad yidhi lama arko. walacala allaha yacdaru amhaalah, waxaa laga yaabaa buu yidhi in ilaahay u cudur daaro amhaalahu, dadka asigoo kale ah, dadka qataadoo kale ah. miman talabasa bibidcatin, oo ka mida buu yidhi dadkii dhex galay ama ku dhacay bidca, yuriidu bihaa asigoo ula jeeda tacdiima albaari wa tansiihahu, weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala iyo nasihidda allah subxaana wa tacaala asigoo ula jeeda. macnaa uma qasdin inuu bidco ku dhaco, laakiin haddana waa zallo iyo khata uu ku dhacay weeye. wa badala wuscahu, dadaalkiisana bixiya. dadka noocaas oo kale ah oo ayagoo dadaalaya ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisa iyo raaligelintii ku dadaalaya, haddana mararka qaar simbiririxdo oo akhtaada noocaasa ka dhacdo, waxaa laga yaabaa buu yidhi in ilaahay u cudur daaro.
markaasuu wuxuu yidhi dahabi uma ina alkabiira min a'imati alcilm midka weyn oo ka mida a'immada cilmiga idaa kahura sawaabuh hadduu sawaabkiisu bato wa culima taxariihi lilxaqi la ogaado inuu xaqa ku dadaalo waatasaca cilmuhu cilmigiisuna uu ballaarto wadahara dakaa'uhu dakaagiisa iyo fahamkiisa uu soo muuqdo wa curifa salaaxuhu wa waracuhu waitibaacuh la garta buu yidhi salaaxiisa iyo wanaaggiisa iyo waraciisa dhowrsanaantiisa iyo itibaaciisa manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadii nebiga uu raacayo yukfar lahu zalaluh dembigiisa waa loo dhaafaa buu yidhi qofka noocaasa ninka imaamka ah ee a'immada waaweyn ka mid ah ee sawaabkiisu badan yahay ee lagu yaqaana inuu xaqa raadiyo mar walba xaqa raadiyo saaxiibu hawa ma aha nin bidca iyo khuraafaad raadsada ma aha waa nin xaqa raadiyo oo dalba cilmigiisuna uu ballaaran yahay dakaagiisa iyo maaragtay fahamkiisa iyo xifdigiisu muuqdo lagu yaqaano suubanaan qof wanaagsan inuu yahay qof waracle inuu yahay qof nebiga raaca sala allahu calayh wasalam inuu yahay qofka sidaasa hadday zalla iyo gafi ka dhacdo yukfar lahu zalaluhu gafkiisa waa loo dhaafaa ila imaam mujtahida waaye khata'aas ka dhacaya waa loo dhaafaya walaa nudalliluhu wanatraxuhu kuna xukumi mayna buu yidhi dalaal iyo baadi wanatraxuhu oo ma tuurayno inta dalaal iyo baadi lagu xukumo la tuuri maayo wanansaa maxaasinahu maxaasintiisa iyo wanaaggiisana hilmaami mayno intaas waa asiga xaggiisa bidcada uu ku dhacay see ula dhaqmaynaa marka wuxuu yidhi nacam walaa naqtadii bihi fii bidcatihi bidcadiisa laakiin uga dayamayno isaga waan ixtiraamaynaa khata'aasi ka dhacay waxaa laga yaabaa in ilaahay u dhaafo subxaanahu wa tacaala maadaama uu yahay imaam mujtahida oo zalla ay ka dhacday laakiin dadka kale waxaa waajib ku ah inaysan ku raacin bidcadaas nacam walaa naqtadii bihi fii bidcatihi bidcadiisa uga dayan mayna buy wa khata'ihi iyo gafkiisa uga dayan mayno oo ku taqliidi mayno khata'a iyo gafka uu ku dhacay wanarjuu lahu tawbata min dalik waxaan u rajaynaynaa arrintaas inuu ka toobad keeno waxaan u rajaynaynaa gafkaas iyo qaladka iyo bidcadaas uu ku dhacay inuu ka toobad keeno waa sida la rabo marka a'immada sunnada haddii khata' ka dhaco in loola dhaqmo caalim lagu yaqaano atamasuk bisunna iyo caqiidadiisu inay tahay caqiidatu salaf manhaju salafi saalix bashar waayo zalle iyo khata' waa ka dhacaya bimujarad uu qaldamo waa daal mudil in la yidhaahdo sax ma ah bal waa loo cudur daarayaa waxaa la leeyahay waa ijtihaaday wuuna gafay waxaa laga yaabaa in ilaahay dembigiisa u dhaafo ajarna uu ka helo ijtihaadka iyo dadaalka dadka kalena waxaa waajib ku ah inaysan ku raacin gafka maxaa yeelay qof aan nebi moxamed ahayn sala allahu alay slam itibaac ma laha wixii rasuulka ka soo hara maa mina raadun ilaa maa mina ilaa raadun wamarduudun calayh qofi ma jiro culummada ka mid a ilaa waxbuu radiyaa asna waa la radinayaa waa gafayaa waa asiibayaa adiga waxaa waajib kugu ah dariiqii iyo hadyigii nebiga inaad raacdo sala allahu alay wasalam walaa naqtadii bihi fii bidcatihi wa khata'ihi uga dayan mayno buu yihi bidcadiisa iyo qaladkiisa uga dayan mayno wanarjuu lahu tawbata min dalika waxaan u rajaynaynaa arrintaas inuu ka toobad keeno marka khata' iyo gaf cidna lagu raaci maayo qataada marka raximah llah maca jalaalatihi wa fadlihi wa cilmihi mas'aladaasi wuu ku qalday